Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhalinyaro. Muuqaalkan waxaan ku baran doonaa isna sida Google Google Search Console sa loogu xidho blogger leh domain oo aad domain u iibsatay oon wadan wax prefix ama xagga hore ka raacsan oo macnaha sida blogspot.com oo kale ku aan wadanin sida aad Google Search Console aad ku dari lahayd waliba qaab fudud ah insha Allah muuqaalka ku baran doonaa. ugu horeyn waxaad soo qortaa xagga Google Search waxaad ku soo qorataa Google Search Console ku soo qor Google Search Console oo saa u qormaysa ayaad soo qoraysaa marka saa u soo qortid waxay raadad hoos u tagto waa kan ayaad ku soo dhufanaysaa marka ku soo dhufato Google Search Console ku dhufo start now ku dhufo marka ugu horeysa basan ayuu ku soo saaray hadii aadan hore u gelin wax website hadii shaashadan ayuu keenaya adiga waxa laga yaabaa inuu shaashadan ku keeno hadii markii kugu horeysay ee Google aad gelinayso ay tahay website aniga shaashadan ayuu keenaya laakiin wax macna ma sameynayso hadaad hore u gashatay oo shaashadan oo kale aad haysatid waxaad ku soo dhufanaysaa saddexda line ee isdul saaran kadib waxaad ku dhufanaysaa meeshaas sare ay kugu qornaayeen ay kugu jiraan marka hore website-yadu ayaad ku dhufanaysaa kabacdi waxaan ku soo dhufanayaa meesha u hooseysa ay ku qoran tahay add property ayaa ku soo dhufanaysaa add property ma ku soo dhufato san ayuu ku soo saarayaa marka ugu horeysa san ayuu ku soo saarayaa hadii aadan hore u gelin wax website hadii hore u gelisina saarkan soo maray marka ku soo dhufatid san ayuu ku soo saari doonaa kabacdi kan weyn kan doonayeen gelino domain-ka ah maadaama uu domain haysano oo DNS-keena insha Allah verification ayuu noogu sameyn doonaa kan ayaa marka hore la isticmaali jiray labada ka hore iyo ka dambe ayaynu isticmaali jiray markan blogspot iyo waxa aynu adeegsanaynay kaasina waa good oo marka hore waad gelisay mar labaadna waad gelin kartaa haddii isweydiinayso su'aasha hore ayaan ugu jiray Google-ka mar labaad ma gelin karaa yes mar labaad waa gelin kartaa adigoo domain adeegsanaya marka domain iibsato mar labaad inaad geliso wax ku fiican adiga okay halkan ayaad soo gelinaysaa daba URL-ka website-kaaga iyo halka example ku qoran soo gelinaysaa website-kaaga dib ugu laabo home-tiisa markaasi tag hadda website-keena hadda home-kiisa tago oo ku dhufto xagga sare qalinkaas ayaad ku dhufanaysaa marka waa ku soo baxaya hadda waan xajinayaa kadibna copy ayaan soo oranayaa kadib waxaan ku soo laabanay Google Search Console kadib meesha example-ka ayaa ku paste gareynayaa markaas waxaan ka masaxayaa laga bilaabo www-da ilaa halka www. soo raaci dhamaantood waa ka masaxayaa inta waxaan ku diinayaa magacayga halkan dambe forward slash ta waa ka masaxayaa intaasaan ku diinayaa waa magacaaga keliyata oo la socoto .com insha Allah gelin doonta kadib waxaad ku dhufanaysaa continue okay kabacdi wuxuu ku soo saari doonaa shaashadan hadduu uu shaashada ku soo saaro oo verify hore kaaga soo tuurin okay weeye mid dhowr wada ayaa ku bannaan waxaan ugu wanaagsan inaad koobiyeysato meeshan waxa ku jira ama qoraalka meeshan ku jira markaas waxaad sameynaysaa kadib waxaad aadaa meesha uu kaaga furaa domain-kaagu sida GoDaddy oo kale ama Namecheap hadda Namecheap ayaan tagaynaa inagu okay kabacdi waxaad tagtaa Namecheap ama meeshii kaaga furnaa domain-ka aad ka iibsatay sida GoDaddy ama meel kale aad ka iibsatay marka Namecheap markaad soo furto dashboard-ka ayaa ku soo baxaya marka waxaad ku dhufanaysaa profile-kaaga kadib dashboard baad ku soo dhufan kabacdi wuxuu ku keeni doonaa meeshan ayuu ku keenayaa kabacdi markuu meeshan ku keeno uu ku soo saaro domain-nadaada ayuu halkan kaaga soo saarayaa marka domain-ka aad doonaysid host-ka tusaale imka hoyga crypto ayaan doonaynaa marka manage ayaan ku dhufanaa ku kale hadduu kugu jiro ama dhowr ay kugu jiraan kolba kaad baahan tahay ayaad manage ku dhufanaysaa okay kana hadda manage aan ku dhufano kabacdi wuxuu ku soo saari doonaa haddana shaashadan ayuu ku soo saari doonaa okay halkan ayaa haddii san ayna ku ahayn meeshani ama ay saa ka yar duwan tahay waxaad ku dhufanaysaa meeshan ay ku qoran tahay ayaa laga yaabaa inay nooc kale ku tahay oo ayna ku ahayn basic markaasi haddii kuwa kale ku tahay taas sarsaad ka dhiganaysaa markaasi hadduusan kugu soo kacana oo reedisan ayuu ku yahay
marka meesha domain ayaad ku dhufanaysaa insha Allah. Kabacdi waxaad kusii dhufan doontaa advanced DNS. kadib markaad advanced kusoo dhufato kabacdi hoos baad u degaysaa meesha inoogu jireen waxaynu gashanay already hore u gashanay. Okay, waxaad kusoo dhufanaysaa meesha ku qoran tahay add new record. kabacdi waxaad soo gelin doontaa meeshan sare ayaad soo gelin doontaa ayaad kasoo dooran doontaa txt record kaas kasoo dooran doontaa meesha ay ku qoran tahay txt record mid ka hooseyso ayaad soo dooran doontaa txt record halka marka soo dhigto meeshan waxaad ka qori doontaa at meeshan ay ku qoran tahay value waxaad soo gelin doontaa copy halkan aad ku sidatay. Okay, waxaad kusoo laaban doontaa markaasi shaashadii ku furnayd ay ku qornaa uu kugu diyaarsanaa Google Search Console-ku. Okay, marka haddii computer isticmaalso xogaa yar kala baxsan yahay haddii kaleeto waxaad kusoo dhufan doontaa meeshaas ay ku qoran tahay copy. mar walba waa isku mid copy ayaan ku dhuftay hadda copygiisa uu sheegay waan qaatay. kadib copyga ayaan soo gelin doonaa meeshan. kadib copyga ayaan aansitay ayaan soo gelin doonaa meesha ay ku qoran tahay value. copyga ayaan soo gelin doonaa saas ayuu xajin kadibna paste ayaan kusoo dhufan kabacdina save changes ayaan kusoo dhufanayaa. Okay, hadda save changes ayaan ku dhuftay waa la igu daray. kadib waxaad kusoo noqonaysaa page-ka hore ku furnaa markaasi page-kan ayaad oran doontaa verify oo halkan ah ayaad ku dhufan doontaa insha Allah. markaad soo geliso aad copyga qaado aad geliso domain aad geliso DNS-kaaga. Okay, san ayuu kusoo qaban doonaa laakiin muddo yar kadib isaga ayaa ka saari doona oo qaadi doona marka qolada DNS recording ayaa ku sameynaya calculation kabacdi waa ka bixi doona muddo yar kadib waxani. Okay, ayaad iska odhanaysaa. Okay, wax yar kadib isaga kusoo qori doona ad iska yar sugo xogaa hadda dootid ku yar dul sugba oo xogaa iska yar dul sug kadib mar labaad ku verify ku dhufo isaga ku oran doona ownership verified oo waa lagugu daray baa ku dhihi doona. kadib marka ownership verified ka ku soo dhacdo waxaad ku dhufataa meesha ku qoran tahay go to property. Okay, dashboard-kan ayuu ku keenaya marka go to property aad kusoo dhufato. Okay, dashboard-ka markuu keeno saddexda ilig isku saaran kusoo dhufo kabacdi waxaad kusoo dhufataa meesha ku qoran tahay site map kusoo dhufo. halkan waxaad kusoo qortaa site map-ka soo waxaad soo qaadaa URL-kaaga laftiisa soo qaado xagga dambe kadib waxaad ka raacisaa xagga dambe ayaad kasii raacinaysaa URL-kaaga ayaa si toos u soo qaadanaysaa site map xagga dambe ka raaci site map.xml xagga dambe ka raaci kadib waxaad ku dhufataa submit ku dhufo. marka submit ku dhufato waxoogaa waa ku yar wareegi doonaa kadib san ku saaraya go it ku dhufo markaasi. Okay, haddaan ku dhufano go it waa inoogu daray oo successful oranaya markaasi insha Allah halkan inaad kusoo guuleysanaysa ayaan rajeynayaa. Okay, mar kale waxaad kusoo noqotaa 3 dot kaasi kabacdi waxaad timaadaa overview kusoo dhufo kabacdi markaad overview kusoo dhufato waxaad aadaa. Okay, markaad kusoo laabato blogger website-kaaga postiyadan mid kamid ah ayaad ku dhufanaysaa intaad kusoo laabato blogger website. Okay, tusaale hadda mid kamid ah ayaan ku dhufanayaa waxaa ku dhufanayaa kan ay ku jiraan waxaan qaadayaa URL-kiisa sare ayaan qaadayaa insha Allah. kadib waxaad kusoo dhufan marka dul dhufatay kadib waxaad ku dhufataa meeshan labada calaamadood ee saaran kabacdi tabti ku furnayd kadib kusoo laaba Google Search Console-kaaga kabacdi halkan overview ku taagnaato markaasi meeshaas sare ee search-ka ayaad taabanaysaa kabacdi waxoogaa waa yar xajinaysaa kadib copy-gaaga ayaad halkaa gashanaysaa then waxaad odhanaysaa falaadhan ayaad ku dhufanaysaa ama go ayaa xagga hoose kugu qoran marka isaga ayaa retrieve kugu sameynaya waad iska sugaysaa waxoogaa insha Allah. Okay, markuu saa kusoo qoro waxaad ku dhufanaysaa request indexing. Okay, kadib shaashadan ayuu kuu soo saari doonaa markuu shaashadan kuu soo saaro wuxuu kuu sheegayaa in lagu daray in lagu codsaday page-kaasi inuu live yahay
markaasi go it ayaad kaga dhufanaysaa. Kadib waxaad ku dhufan doontaa meeshaas ay ku qoran tahay test live URL. Okay, hadda saas ku soo qabanaya wixii ka dambeeya intaasi. Wuxuu ku soo qaban doonaa URL is available to Google. Haddii cilad kale ku haysanin, haddii wax cilad oo kale oo intaa ka badan ku haysato, xagga hoose ayaan ku dhigayaa WhatsApp chatkeena, WhatsApp groupkeena ayaan xagga hoose ku dhigayaa. Halkaas ayaad igala soo xiriiri doontaa insha Allah. Iminka hadda wax walba inay yihiin baan rajeynayaa. Muuqaalkeena xiga waxaan soo gelin doonaa insha Allah isagana sida Google Analytics loogu daro. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.